munaasabadan oo ahayd mid lagu ciidsiinayay qaar ka mid ah agoonta ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa lagu qabtay magaaladaasi maanta. waxaa munaasabada soo qaban qaabiyay Mascuud Cabdirasaaq oo wakiil uga ah deeq-bixiyayaal ku nool dalka Holland oo magacoodu la yiraahdo Somali Children Support. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah howlwadeenada kooxda Somali Children Support. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaa farxad noo ah inaan isku imaano munaasabadii labaad ee aan ku ciidsiinay walaalaheena danyarta ah Soomaaliyeed khaasatan kuwa agoominta ah. marka alxamdulillah waxay mahad u sugnaatay alle waana munaasabadii labaad tii horna waxay ahayd afuris tan waxa la ciidsiinayaa ilmaha agoominta waxaana soo wakiishay Somali Children Support. sidoo kale waxaa hadalla soo jeediyay qaar ka mid ah hooyooyinka caruurta dhalay iyagoona u mahad celiyay deeq-bixiyayaasha. bismillaahi assalaamu calaykum waan u mahad celinaynaa walaalaha naga ciidsiiyay dadkii aan ugu soo dhiibeen si fiican ayuu noo siiyay u mahad celinaynaa dhamaantood u mahad celinaynaa Somali Children Support ayaan u mahad celinaynaa. bismillaahi assalaamu calaykum waa u mahad celinaynaa walaalaheena muslimiinta ah Somali Children waa mahadsantihiin walaalaha naga muslimiinta ah si fiican baa noo ciidsiiseen nimanka u soo xilsaarateena si fiican bay noo siiyeen khayr Allah siiyo jazaakallahu khayr. waxaa iyaguna mahad ballaaran u diray kooxda Somali Children Support agoonta iyagu la ciidsiinayay oo ay farxadi ka muuqatay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiwali dadkan ciidsiiyay way ku mahadsan yihiin Somali Children waa u mahad celinaynaa dadkana soo wakiishan waa u mahad celinaynaa. munaasabadan ayaa daba joogto caawintii Somali Children Support ay caawiyeen dad danyar ah oo ku dhaqan deegaanadaasi bartamihii bishii barakeysneed ee la soo dhaafay. maxamed khadar maxamuud Gedo Channel Balad Xaawo.